qisadan waxay la xiriirtaa camalka wanaagsan ee qofka uu sameeyo iyo faa'iidada adduunyo iyo midda aakhiro ay u leedahay isaga shakhsi ahaan. hooyo hadda ka hor iibin jirtay rootiga ayaa subax walba marka rootiga inta ganacsiga ugu tala gashay ay samayso ay waxay ku dari jirtay xabad rooti ah oo si qurux badan loo sameeyey, si fiican loo gudoodiyey, cunitaanka ku wanaagsan. waxay u ahayd sadaqo. sadaqadana waxaa la yidhaahdaa waa gaashaan. marka waxay ku xidhi jirtay ama saari jirtay meel albaabka gurigeeda ah. subax walba marka waxaa soo mara nin yara curyaan ah, duruufo ay ka muuqato, dharka uu wato iyo duruufta wejigiisa iyo jirkiisa ka muuqata aan la malayn karin. marka subax walba marka uu qaato xabadda rootiga ah ay ugu tala gashay dadka masaakiinta ah ayuu wuxuu ku celceliyaa laba eray. ereyga koowaad waxa weeyaan sharta aa samayso aday ku dhibaysaa, khayrka aa samaysatana adu ku anfacayaa.